محمد أحمد سيد. محمد أحمد سيد. إلياس بدل قباصر. إلياس بدل قباصر. إلياس بدل قباصر. محمد أحمد سيد. محمد أحمد سيد. إلياس بدل قباصر. محمد أحمد سيد. محمد أحمد سيد. إلياس بدل قباصر. 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 ودو جدان قدومية بوكسكي وفاروق. إميكا وحن بلاوينا ترينتا عودتك كدب أيانا إنيسو جيدين دونا وحي نتيجة marka fadlan qof walba ha suga inta looga dhawaaqayo natiijada rasmiga ah. codka iyo sawaxanka ha la yareeyo, dhaqdhaqaaqa ha la yareeyo.
daawadayaal waxaad weli inaga daawanaysaan howlka daawada oo si toosaan ugu suganay isla markaana ay ka dhacaysay codaynta loo codaynayo kursigii u horreeyey ka mid noqonaya senatarada dowlad goboleedka Jubbaland ku matali doona golaha ama aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa kursiga ku tartamayay musharax Ilyas Bedel Gabose iyo musharax Maxamed Axmed Sayid doorashadii ama tirintii codadka ay haatan si toos ah u dhamaatay weli waxaan sugaynaa natiijadii iyadoo oo aan sugayno in lagu dhawaaqo isla markaana guuleystaha si rasmi ah halkan looga shaaciyo inta aanan loo gudbin u codaynta kursiga labaad guuleystaha ku soo baxa kursigan daawadayaal wuxuu noqon doonaa senatarka u horreeyey loo doorto inuu ka mid noqdo baarlamaanka 11aad jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ilaa haatan tirada aan hayno hal cod ayaa khasaaray labada musharax codadka ay heleena weli ma aanu hayno waana sugaynaa natiijada in lagu dhawaaqo waxaa si toos ah inooga daawanaysaan shaashada TV-ga dowlad goboleedka Jubbaland iyo qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah oo si toos ah doorashada ka soo tabinaysa magaalada Kismaayo gaar ahaan hoolka daawad dowlad goboleedka Jubbaland ayaa daawadayaal si aad la socotaan ba noqday dowlad goboleedkii u horreeyay ee hirgeliya doorashooyinka iyadoo oo weli dowlad goboleedyada kalena aysan weli ku dhawaaqin waxaa maanta loo codeynayaa 4 ka mid ah 8 senatar ee dowlad goboleedka Jubbaland ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya daawadayaal waxaan weli sugaynaa in lagu dhawaaqo natiijada codaynta kursiga u horreeyay baarlamaanka 11aad ee federaalka Soomaaliya waxaa loo codeeyay xildhibaanka ama waxaa loo codeeyay senatarka dowlad goboleedka Jubbaland ku matali doona baarlamaanka ama aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya dowlad goboleedka Jubbaland waxa uu ku leeyahay 8 kursi ayuu ku leeyahay aqalka sare oo ka kooban guud ahaanba ama ka koobanba 56 kursi dowlad goboleedka Puntland iyo gobolada waqooyi min 11 kursi ay ku leeyihiin gobolka Banaadir oo 2 kursi ku leh dowlad goboleedka Jubbaland Hirshabelle iyo Galmudugna min 8 kursi ay iyaguna ku leeyihiin waxaan weli sugaynaa in halkan laga dhawaaqo natiijada isla markaana la shaaciyo guuleystaha kursigan ay ku tartamayeen musharax xildhibaan Ilyas Bedel Gabose iyo sidoo kale musharax xildhibaan Maxamed Axmed Sayid guuleystahana uu noqon doono xildhibaanka ama senatarka u horreeyay ku guuleysta inuu ka mid noqdo baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya weli waxaan lagu dhawaaqin ama dowlad goboleedyada laga sugayaa in ay sheegaan ama shaaciyaanba ama bilaabaanba doorashooyinka ilaa haatanna waxaa kaliya aan haynaa dowlad goboleedka Jubbaland oo doorashada maanta si rasmi ah uga bilaabatay 4 senatarna la filayo in halkan looga codeeyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo magacaabay guddiga baarlamaanka ee maamulaya doorashooyinka inta dowlad goboleedyada kale la sugayo in ay guda galaan howlaha doorashooyinka si loo yegleelo ama loo aasaaso baarlamaanka 11aad
ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya halkan waa magaalada kismaayo waxaa si toos aan idinka imanaynaa hoolka daawad oo ah halka ay ka dhacayso doorashada qaar ka mid ah kuraasta ee ku matali doona dowlad goboleedka jubbaland ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya natiijadii ayaa weli aan sugaynaa shaacinteeda waxaana hoolka ku sugan oo goobjoog ka ah doorashadan guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee dowlad goboleedka jubbaland doctor siyaad iyo sidoo kale guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xasan maxamed ciro iyo sidoo kaleba guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka ee guddiga hirgelinta doorashooyinka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ninka inoo soo gabagaboobay codbixintii iyo tirintii kursigii koowaad ee aqalka sare oo ay u tartamayeen Ilyaas Bedel Gaboose iyo Maxamed Axmed Maxamuud Sayid natiijada ayaa diyaar ah codtirintii waa ay noo soo dhammaatay labada qof ee codtiriyaalka u ahaa ee kala matalaya Ilyaas Bedel Gaboose iyo Maxamed Axmed Sayid waxa ay xaqiijiyeen tirada rasmiga ah ee qof waliba uu helay iminka waxaan ku soo dhawaynayaa guddoomiyaha golaha shacabka Jubbaland si uu ugu dhawaaqo natiijada kadibna waxaan ku wareejin doonaa guddoomiyaha guddiga Siid Jubbaland si uu asagana dhankiisa doorashada jawaabteedii uu ugu dhawaaqo guddoomiye ku soo dhawaaq waa war la qabo xiise male waxaan u malaynayaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka baarlamaanka Jubbaland wuu hadlay ama adinka dhanba nin qalin iyo buug buu haystay marka tartamayaasha kursigii koowaad ku tartamay Ilyaas Bedel Gaboose iyo Maxamed Axmed Sayid xildhibaanada codeeyay waxay ahaayeen 73 konton iyo 5 waxaa helay Ilyaas Bedel Gaboose 17 cod waxaa helay Maxamed Maxamuud Sayid Maxamed Axmed Sayid hal codna waa halaabay marka waxaa kursigii lagu tartamayay ku guuleystay Ilyaas Bedel Gaboose taasaan markhaati ka nahay waan soo dhawaynaynaa waan alxamdulillah وقدر عيسى وكلا سعودي وحان أقبل الله عدانا يقودي دورشوينكا فدرالكا برلمانك فدرالكا قامد يسير قرنتيسا جبلان وحا قوليستي سيدا وربحنتا وكسو قديي قدونكا برلمانكا AS01 JL ومعنى هذو يهي aqalka sare kursiga koobaad ee Jubbaland waxa uu guuleystay Ilyaas Bedel Gaboose guddiga Siidna taasuu aqoonsan yahay waxaan rajaynaynaa marka inaan horeyna ka sii wadano aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waad mahadsantahay guddoomiye waxaan u gudbi doonaa kursiga labaad balse in yar oo biriirif qofkii u baahan inuu musqul iyo maartay ما باهن ما جرت
haya kursiga kale ayaan geli doonaa marka insha allah qof walba meeshiisa ha fadhiyo kursigiisa ha fadhiyo waxaan bilaabaynaa codayntii kursiga labaad waad mahadsantiin ay hawsha noogu hufnaato oo maxaan ku alla fadhiisto yeedhintii baa la gelayaa miiskana meeshiisa lagu celiyo kursigii labaad salaada ka hor insha allah inaan ku kala baxnaan rabnaa wakhtigaan ka faa'iidaysanna hadduu ilaa idhahdo waxba yaan la degdegin si habsocodka doorashadu ay noogu socoto socodka iyo buuqa ha la joojiyo waa dhumahaceynaa meediyaha siday isu koontarooleen oo meesha aysan socodkooda u badnayn fadlan birrifta kabacdi aan isu soo noqonno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan soo noqonaynaa bacda 20 minute kadib baan soo noqonaynaa 20 daqiiqo bacdi daawadayaal waxaan si toosa ugu sugannahay howlka daawad oo halka ay ka dhacaysay doorashada loo codeynaya aqalka ama kursiga koowaad ah senatarka dowlad goboleedka Jubbaland ku matali doona aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya doorashadii ayaa si toos halkan ugu soo gabagabowday waxaana kursiga ku guuleystay musharax xildhibaan ama intan wixii ka dambeeya ee loogu yeeri doono senator Ilyas Bedel Gaboose waxaa la tartamayay musharax محمد أحمد سيد doorashada halkan ayaa laga dhawaaqay waxaana ku guuleystay Ilyas Bedel Gaboose oo helay 55 kursi musharax Maxamed Axmed Sayid waxa uu helay 17 cod waxa uu helay 17 cod hal codna waa uu halaabay ama hal codna waa uu khasaaray waxa doorashada halkan si toos ah uga dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland mudana Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan waxa sidoo kalena goobjoog ahaa gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleedka Jubbaland Dr. Siyaad waxaad si toos ah uga daawaneysaan shaashada TV-ga dowlad goboleedka Jubbaland iyo qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga oo doorashadan aan si toos ah idinka soo tabinayno mudane Ilyas Bedel Gaboose ama senator Ilyas Bedel Gaboose waxa uu sida ku noqday senatorkii koowaad ee loo doortay inuu ka mid noqdo baarlamaanka 11aad ama aqalka sare ee baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana sidaas rasmi ugu soo gabagaboobay muddaxileedkii baarlamaanka 11aad ama aqalka sare ee baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedka Jubbaland waxa uu noqday dowlad goboleedkii ugu horeeyay si toos ah ugu dhawaaqa ama u hirgeliyay doorashooyinka waxa dhabarkiina idinka muuqda oo aad si toos ah u daawanaysaan dabaaldeg ama hambalyo ay qaar ka mid ah shacabkii iyo xildhibaanadii ku sugnaa howlkan la wadaagayaan ku guuleystay kursigan waa senator Ilyas Bedel Gaboose waxaan rajaynaynaa daawadayaal in daqiiqadaha fooda inagu soo haya aan si toos ah idinku soo gudbino halkanna uu inagala hadlo ama inagala bahadlaan labada musharax ee u tartamayay ama musharaxii u tartamayay oo ahaa mudane Maxamed Axmed Sayid kursiga loo guuleystay iyo guuleystaha ku guuleystay kursiga koowaad aqalka sare baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya senator Ilyas Bedel Gaboose senator Ilyas Bedel Gaboose daawadayaal waxa uu ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka Jubbada Hoose waxa uuna ka tirsanaa ama uu gudoomiye ka ahaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya ee warkacay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waxaan rajaynaynaa in aad si toos ah aan idinku soo gudbino musharax ama guuleystaha waa senator Ilyas Bedel Gaboose iyo sidoo kale musharaxii isaga ku tartamayay kursigan waxaana si toos ah uga daawanaysaan shaashada TV-ga dowlad goboleedka Jubbaland iyo qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga oo doorashadan aan si toos ah idinka soo tabinayno qaar ka mid ah idaacadaha oo ay horeyso idaacadda Radio Kismaayo ayaad sidoo kale doorashadan si toos ah daawadayaal uga socotaan waxaan idinku soo tabinaynaa ama aad naga daawanaysaan shaashada telefishinka iyo sidoo kale bogga aynu ku leenahay baraha bulshada haddii aynu qalayd Facebookka Twitterka iyo sidoo kaleba YouTube-ka waxaa dhabarkiina idinka muuqda